kulanti wanaagsan oo waxaan khiyaaray meel kastoo aad dunida ka joogtaan kula soo dhawaada barnaamij degdeg oo aanu ku eegi doono taliyihii ugu sarreeyey ciidamada ICE ee Bavino ayaa hoteelkiisii hortiisa isbaaro la dhigtay caawa jiif iyo joog ayaa loo diiday xaaladuna meel aad iyo aad u adag ayay maraysaa xilli kadib markii ninkii neeska ahaa ama kalkaaliyaha caafimaadka ahaa ciidamada ICE ay dileen aqalkii cad ee Maraykanka kala yaac ayaa ku dhacay xaaladuna aad ayay ugu forodhaa wararkii ugu dambeeyey daawadayaal dalka Maraykanka ka imaanaya wariyahana rugcadaaga ee Saare Cabdi Axmed ayaa haysta Saare soo dhawow mahadsanid cabdi xafiid waa sidaasi aad sheegtay Gregory Bavino ninka la yiraahdo iyo qayb ka mid ah ciidamada border patrolka ayaa beri subaxdii xilliga Minnesota oo saacado ay naga xigaan halkaas isaga soo huleeli doono ama ka soo dhaqaaqi doono kadib markii cadaadis xoogan iyo fadeexad ay ka soo gaartay hadalkii uu sheegay markii la dilay Alex Berry oo ahaa nin dhalinyaro ah 37 sano jir ahaa asagoo haweeney difaacaya ICE ay toogteen isla markaasina sarkaalkan uu si jees la shir jaraa'ida uu qabtay uu ku sheegay in uu rabay inuu xasuuq geysto markii uu qori la soo baxay ninkaasi iyada oo warbaahinta Maraykanka iyo guud ahaanba caalamka laga daawaday in wiilkaasi asagoo oo 6 qof 7 qof ay sidaas dhulka ugu hayso haddana ma aragtay leh don't hit me waxba ay ugu dhufanina waraa idilina asagoo ku haayo lagu dhuftay intaasoo xabadood xataa hal xaba kaliya maysan ahayn arrinta fadeexad ayay noqotay caawadaas aan kula hadlay sida muuqaalkaas yar hordhaca aad muujisayba haddadan aan kula hadlay wax yar ka hor gobolka Minnesota magaalada Minneapolis hotelka uu ka deganaa ninkaasi Bavino ah ayaa boqolaal dad ah ay hor dhooban yihiin oo ay leeyihiin soo bax maaragtay mudaharaad xoogan ayaa ka socda ciidamo fara badan ayaa la keenay oo jooga meesha si hotelka ammaankiisa ay u ilaaliyaan marka reer Minnesota caawa dhanna way ka dabaaldegayaan dhinacna weli mudaharaadka ayay ka wadaan dhinacna waa ay u riyaaqayaan arrintan oo arrin guul weyn ah oo u soo hoyata ayay noqotay kadib halgan badan iyo dibadbaxyo badan daawadayaal dabaaldega Sahra ay sheegaysa mid aan noociisa kala arkin intii aynu ku guda jirnay wararkan Maraykanka ka imaanaya gaar ahaan gobolkan Soomaalidu ay degantahay ayaan qaybta dambe idinku haynaa idinkaaba yaabi doona halka joojiyaha ay u sahay Sahro jiif iyo joog waa loo diiday dadku ma waxay sugi kari laayihiin inuu baxo caawana hurdada ayay u qoonsanayaan maadaama umad fara badan uu hurdalaan ku riday dabcan caawa kaliya ma aha xalay xataa way jirtay dadka reer Minnesota dad adkaysi badan ayay noqdeen dad ma aragtay adag oo dagaalyahana lagu tilmaami karo bay noqdeen qorraxda hadday dhahdo ma celinayso waad ogta xilligan barafka iyo qabowga below 0 cimilada ay tahay gobolkaasi ay banaanka boorar la taagan yihiin ay qatar gelinayaan ICE oo leeyihiin ka baxa hoteeladii sidoo kale intaasi kaliya ma aha caawa waxaa kaleetoo jirto in xataa goob shidaal ay doonteen ayagoo fara badan ICE 2 iyo 3 ma socon karaan ayagoo tirada ka badan ayaa waxay tageen goob shidaal goobtii markay tageen baabuurta shidaalada ay ku shuban lahayn dadkii ka warhelay meesha la soo buux dhaafiyay markii mudaharaad iyo firimbi iyo baabuur hoonkiisa iyo buuq iyo qaylo lagu furay oo ay xataa shidaalkii gadan waayeen marka xaalad adag ayay ku jiraan ayagana ay ku joogaan halkaasi dadka reer Minnesota waxay noqdeen dad ka dhabeeyay waxa ay rabaan waxay leeyihiin ICE out ICE waa inay ka baxdaa gobolka ma joogayso waayahay dadkan reer Minnesota aragnay gobollo kale oo ay ICE hawlgaladan ay ka wado laakiin dadkan dabadbaxooda isku duubnidooda Soomaalida sidii u garab taagan yihiin dadka soo gurutiga waxa muuqata inay ka duwan yihiin waa maxay wararka aad helaysid ay kaga duwan yihiin dadka kale ee gobollada kala degan marka la eego midab ahaan waa isku mid inta badan isku waxbay inta badan aaminsan yihiin haddana waa isku af haddana waa isku dhaqan haddana kala duwanaansho weyn baa muuqata xaalkuwaase Minnesota horta sideedaba waxaa lagu naanaysaa Minnesota nice oo macnaheedu ay tahay dadkeeda waxaa la yiraahdaa dhulku waa dhul qabow
oo aan ku diirinayn laakiin dadka qalbiyadooda ku diirinaya dadka reer minnesota waxaad ka garan kartaa dadyooga ugu badan ee muhaajiriina ayaa jooga soomaalida ugu badan ee maraykanka ayaa joogta gobolkaasi sababtu waxay tahay dad aad iyo aad u qiimo badan dad aad iyo aad u fiican soo dhoweyn leh u dhimriyo dadka danyarta ah maxaan ku rahdaa aan hoostooda lagala bixi karin ayaa halkaasi waxaad arkaysaa mudaharaadyada ugu badanay boqolkiiba 90 waa dadka cadaanka dadka oo maaragtay qowmiyadda cadaanka ee meeshaasi degan oo kuna badan gobolkaasi waxaad arkaysaa labada qof ee ugu dambeysay hadda dhimatay waa wiilkan Alex Berry ah iyo gabadhaani Renee Good ah labaduba waxay difaacayeen qaybna ka ahaayeen mudaharaadyada looga soo horjeeda ICE dadka Soomaalida ah ay arrintan ka bilaabatay waad la socotaa oo markii ugu horeysay ujeedka ugu badan oo ciidamada loogu diro meesha ayaga ayay ahaayeen Renee Good baabuurkeeda dadkii soo banaan bixay ku jirtay oo lahaa waxaana ma qabato meeshii la dhigay haddana waxaa ku xigay Alex Berry oo asagoo gabar ma aragtay dhulka intee ku dhacday xataa dhulka ku dhacday ka daba tagaayo ay hal mar ku xoomeen oo ka daba tageen ciidamadii oo dhan ee ma aragtay ku soo xoomeen ayagii oo dhan marka taas maxay ku tusaysaa taas waxay ku tusaysaa in dadka gobolka ay yihiin dad qalbi fiican oo ma aragtay muujiyo in maganta gacantooda aan lagala bixin si weynna arrintaasi ma aragtay waxay u noqotay wax warbaahinta oo dhan qabsaday sidaad arkaysiinba Alex waxa uu ahaa nin aad iyo aad hooyadiisii aabiis xataa way sheegeen waxay dhaheen wuxuu ahaa wiil aad iyo aad u qalbi fiican maanta waxaa meydkiisa laga sogootinaya xataa isbitaalkii uu ka shaqaynayay Minnesota VA halkaasi oo uu ka ahaa qaybta neerska ICU-da amaba intensive care unit-ka wuxuu ahaa nin aad loo soo barbaariyey wuxuu ahaa nin dabcan caafimaadka qaybteeda ku jirto wuxuu ahaa nin departmentiga oo veteran affairs-ka oo ciidamada Mareykanka ee marka ay veterano noqdaan isbitaalada la geeyo dadka u shaqeeya ayuu ahaa oo dowladuba la shaqaynayayba laakiinse haddana waalidkiis waxay sheegeen inuu nasan waayey si markaasi uu uga qayb gala dibadbaxyada tan iyo markii la dilay Renee Good asaga laftirkiisa waxa uu lahaa tanna ma qabato gobolkeena saan ma aha Mareykanka naqaanayna saan ma aha marka dadka reer Minnesota dadku way ka duwan yihiin tan waxa ka hadashay fadeexada ka dhacday dilkiisii ninkan kalkaaliyaha ahaa ee aad iyo aadka markaas dadku ay u jeclaayeen dareenkoodana ay muujiyeen marka aad eegtid asaga ka hor Renee waa tii la dilay dilkii Renee wixii ka dambeeyey diiraddii iyo taargetkii Soomaalidu ahayd waxaa muuqatay inay ka wareegtay oo Renee u wareegtay arrintaanuna marka ay timid magacii Soomaalidaba cid hadal haya ma lahan mishinkii Trump ku fashilmay meesha aada weyn waa sidaad u tiri waa ka helay Trump waa saxan tahay Trump howlgalkii u diray halkaasi ee ICE waa fashilmay waxaa fashilmay saraakiishii watay howlgalkaasi haddii ay noqoto xogayaha arrimaha homeland security-ga ama hay'adda amniga gudaha waddankan xogaye marka la leeyahay wasiir ayaa laga wadaa gabadhaasi wasiirka Kristi Noem waxaa kaleeto oo fashilmay oo haddadaanba gobolka degdeg looga soo saaraya Brisbane ninkan haystay ICE iyo border patrolka waxaa fashilmay FBI-da madaxeeda oo ayagana warar horudhaca oo baaritaan rasmiya aysan sameynin ku dhawaaqay sheegayna in uu ahaa wiilkan Alex qoriga uu lahaa amaba hadday noqoto hubka uu lahaa hub gacmeed ayuu watay yiraahdeen miduusan gacantiisa la gaarin ama uusan la soo bixin asagoo dhulka yaalla 10 qof ay ka koreyso gabar difaacayay maaragtay lagu kordila ayuu noqday marka waxaasoo dhan waxay ku tusaysaa in ay tahay saraakiishan inaysan ka fiirsanin howlgallada ay sameynayaan cawaaqibka ka imaanayo maanta waad aragtaa ayagii haysataa caawa hotelkiisi ayaa la horhoreynayaa oo dadkii maaragtaba hotel kastoo Soomaalida hotel kastoo dadka reer Minnesota ay ogaadaan inay degan yihiin raggan ICE-na saasay u weerarayeen laakiin cawaaqibka kaliya ma aha saraakiishan Trump oo howlgalkan halkaas u dirayna yes way haysataa dowladdiisa durbaba asaga waxaa ka muuqda jileec waxa uu xiriir la sameeyey madaxda gobolka governorka ayuu la hadlay Tim Walz wuxuu kaleeto la hadlay oo xusid mudan mayorka magaaladaasi Minneapolis Jacob Frey waxaana uu kala hadlay labadaba in maaragtay ayaga kala hadlay dabcan oo waxay leeyihiin wali way dalbanayaan
in ice ay ka baxdo gobolka. Ice must be out of that waxay leeyihiin state. So marka dadku way caraysan yihiin. Waxa kaliya maqli karaana waxay tahay maadaama laba waqtiyo isku xigto wax ka yar 21 beri laba dil oo xun uu dhacay oo haddana siduu u dhacay weji qaab daran ay tahay dadku waxay dalbanayaan in ciidamada ice ay ka baxaan gobolka. Marka waxaa loo maleynayaa xataa hadda warka sida warar hoose ay sheegayaan in ice xataa ay ku xigi doonaan ayaa loo badinayaa kadib marka ninkan uu gaaro maalinta beriyo talaado ah haddii allaha u dala ogolaado saacado kadib waxaa tegi doona homan ayaa tegi doono gobolka minnesota waxa uu kulamo la qaadan doonaa mayorka iyo governorka kadibna warar hoose ayaa sheegaya dabcan saacadaha soo socda war ka farxad badan kan inuu imaadaa dhici karto waayahay sahra halkaas iigu hay daawadayaal muuqaalkan idiin sheegaya la socda balse intaa ka hor waxaan jeclaan idinku dhiirigeliyo idinkana codsado channelka sahra waa kan aad 24 saac ka heli doontaan wararkii ugu dambeeyey waraysiyo xiise leh oo idin raali geliya mar fadlan ku xirnaada gabalaalkana furta saan waxba idiin sheeginin sahro intaas kadib waxaad sheegtay Donald Trump inuu la hadlay madaxdii gobolka inuu la hadlay sida duqa gobolka haystay iyo gudoomiyihii ciraade duqi magaalada Jacob Frey inuu la hadlay Trump labadaa nin aflagaado iyo cay xad dhaafa ayuu ku hayay horey waxaanu aragnay meerka magaalada New York asagoo saas oo kale oo aflagaadeynaya markuu yimid xaaladii waatii ay weji kala yeelato ammaan kala dulacay marka Trump inuu soo dawca maxaa keenay waa sidaas aad sheegtay aflagaadooyinka xataa waxaa ka mid ahaa inuu lahaa Tim Walz gobolka ayuu hubeeyey dadkii ayuu ma aragtay xasrad ku abuuray ciidamadii anaga aan wadnay lama shaqeynayo ciidamadii booliiska gobolka lama shaqeynayaan meel xun ayaa la kala taagnaa lasma wici jirin lama wada hadli jirin Tim Walz mar walba shir jaraa'id waxaa la isu marin jira hadallada warbaahinta xiriir oo ay lahaayeen intii howlgalkan uu socday xaaladahana ay soo xumaanayeen maamulka gobolka iyo kan White House ee madaxweyne Donald Trump laakiinse hadda waxaa muuqato sidaas aad sheegtaba Trump wuu soo dabcay wuxuuna dareemay dhiiqa lagu haloo geliyaan maqli jiro dhiiqadii camal ay jirta hadda marka Trump hadda wuxuu rabaa ibixiyo u bixi qof walbaba maanta marka aad xasaanad leedahay ama aad xil hayso berri way dhamaanay berri markay dhamaatana waxaa lagu geenayaa maxkamad marka si taas qof walbaba uu uga digtoonaado waa inuu asaga tiisa bixiyaa hadda durbaba uu dirayaa ninkan saaxiibkiis ay ahaa oo maaragtay qaybta asna sidoo kaleeta immigrationada haystay ee patrolka border zaarka la yiraahdo haystay Thomas Homan waa nin asaga laftarkiisa la sheego inuu yahay dadka midigta fog oo aragtida ay ku weyn tahay cadaanimada Donald Trump ee aad isugu dhow yihiin asagoon baxta xafiiska imaanin dadkii uu magacaabo ku jira 2024kii waxaa jirto maxaan ku raahdaa u qaabilsanaa dhinaca patrolka intuu soo noqday hadda asagu toos ula shaqeynayay waa nin weyn oo 1961 meelahaas dhashay waa nin dadkaasi saan sheegayba ay la weyntahay cadaannimada ah haddana sidaasoy tahay waxaa muuqanayso ninka hadda dhinta waa nin cadaan ah gabadha dhimata waa gabar cadaan ah waa dad citizens oo Mareykan ah waa dad wax bartay waa dad ehelkoodii iyo dadkii ay ka dambeeyeen ay joogaan marka laguma ladaayo maadaama wadankan marka intuu isu rogi lahaa civil war ama waxa loo yaqaan dagaal sokeeye dhibaato ay dhici lahayd waa in la qaboojiyaa xaaladda marka already waxaa jirto in wax ka yar 3 usbuuc saa hore usoo sheegay dilkii labaad uu dhacay dhaawac uu jiro barakicin ay jirto guryo burbure ay jiraan ma aragtay ice dadku ma aragtay dad fara badan ay ka qabatay gobolka marka xaaladan si loo rogo taliyaasha waa in la soo qaadaa marka waxaa xigi doonta sida la leeyahay Kristi Noem gabadhan xogayaha Homeland Security waana ogtahay border patrolka iyo ICE-kaba waxay hoos imaadaan ayaguna Homeland Security-ga marka sidaad la socotidbo waxaa jiri doonto in waxyaabo fara badan ay xigi doonaan la rajeynaya arrintan waayahay marka aynu eegno dadweynaha Soomaalida gobolkan ku nool ay soo meeshan ka baxda ama howlgaladooda oo hoos loo dhigo sidee ayay u arkaan dadka aad bay u soo dhaweynayaan wixii ugu badnaa oo ay dalbanayeen shacabka gobolkaasi ku dhaqan waa ICE ka baxda gobolka
ICE ka baxda gobolka iyo mas-uuliyiinta waxaana cajiib ah dadka reer Minnesota iyo mayorada magaalooyinka iyo governorka guud iyo dadka oo dhan taliyaasha ciidamada booliiska taliyaasha ciidamada national guardka stateka uu leeyahay waxaasoo dhan waaxda shariifiska ee booliiska way isku wada xiran yihiin waxaa moodaa in maaragtay si rasmi ay u wada howlgalayaan xataa waxaa cajiib ahayd dibadbixii ugu weynaa markii uu dhacay xataa dadka waxay wateen waxyaabo ay ku wada xiriirayaan oo raadiyaasha halowhalowda ah maaragtay grassrootka ilaa iyo mas-uuliyiinta hoose ilaa ay kuwa heer gobol way wada socdaan oo habeen iyo maalinna howlgalladooda iyo waxa ay qabanayaan way taagan yihiin waayahay arrinta kaloo muhiimadda gaarka iskale waxay tahay doorashadii midtime electionka soo socda arrintan markii horeba Trump wuxuu uga dan lahaa ayaa leeyahay doorashada bisha November ee dhamaadka sanadka 2026 ka dhacaysa in uu gudoomiyaha bedelo statekan markaas uu ka dhigay state Republican ah markaad eegtid sida loo kala fogaaday iyo xaaladdu meeshay marayso rajada uu arrintaa ka qabo maxay tahay way sii adkaanaysaa waayo shacabka maraykanka wax doorto maraykanka shacabkiina hadday saan u naceen republicanka awalba iyadoo statekas uu ahaa state buluug ah oo micnaha dadka ka soo baxa ay yihiin dad dimuqraadi ah dadka wax doorto dimuqraadiyiin ay yihiin liberal ah hadda oo dhibaato intaasi la eg uu gobolkan marayay muddo intaasi la eg way adkaan doontaa in rajo fiican ay ku yeeshaan xisbiga republicanka waxaa kaloo xusud mudan oo meesha ku jirta ayadana gabadha la yiraahdo Amy Klobuchar oo iyadoo hadda sanadka ah in ay imaan doonto oo ay u soo socoto labadan beri saddexdan beri soo socoto inay ku dhawaaqdaan laga yaabo waa is register garaysan warar hoose sheegayo inay noqoto gobratooraha ama gudoomiyaha gobolka inay u cararto which ay easy inay ku helayso la qiyaasa iyadana booskeedina loo raadinayo haddana qof kaleeto oo dabcan dimuqraadi ah laga yaabo inuu Tim Walz kusoo baxo asna marka gobolka hadeer leba si fiican usii xajisan doonaan xisbiga dimuqraadiga ayada oo maaragtay dhinaca kaleeta arrintan ay sii shiiqin doonto sii baabi'in doonto rajadii republicanka ay kala haayeen gobolkaasi waayahay daawadayaal soo dhaweynaa meel kastoo dunida ka joogtaan waxaad daawanaysaan wararkii ugu dambeeyey iyo muuqaaladii ugu dambeeyey dalka maraykanka ka imaanaya iyo isbeddel weyn oo lama filaana oo halkan ka dhacay waayahay haddii aynu muuqaalka ugu dambeeya intaan soo gudbinin dabcan waxaynu ognahay inaan ku daro waxaan jeclaan lahaa arrin kaleetoo cajiib ah ayaa jirto waddankan waxaa ka jiro kambaniyaal xoogan oo dowladda dhexe xataa aysan gilgili karin marka ay timaado arrimaha hubka waa ragga hubka ka ganacsada waa ragga la loodin waayo si kastoo ilmaha hubka ay isugu dhammeeyeen dalkan maraykanka NRI ayaa la dhahaa NAR waa National River Agency hay-addaasi waa hay-ad xoog badan dhaqaale xoog badan leh ee dalkan maraykanka si weyn maaragtay loo loodin waayo muddaba haddii la isku dayay in maaragtay laga hor imaado oo maaragtay waad ogtahay waxaad la socotaa in inta badan iskuullada shuurina ayaa dhaco goobaha ganacsiga goobaha dadka isugu yimaadaan waay loo soo afjari waa arrinta hubka dalka maraykanka waa nimanka xoogga leh ee aas-aaska xooggan leh ee dhaqaalaha leh ee hubkaasi ka dambeeya iibsigeeda ragga ka ganacsada waay raggaas durbaba arrinta way soo farageliyeen waxay ka hadlayaan ninkan inuusan qori wadanin oo maxaa ku rahdaa ciidamada ICE dileen oo ay ku gardaroodeen asagoo dhulka yaalana si aabiya loo dilay marka waxay leeyihiin marar badan waxaa laga hadlay hub ayuu haystay hub sharciyeysan ayuu haystay hubkiisa maaragtay bastooladiisa saasay ahayd kan ayuu ahaa wiilkan la dilay Alex ayaguna waxay barbar istaageen durbaba kiiskan ayaga oo muujinaya in wax xuba uusan gacanta ku wadan qofkan uu qaadan karo hub marka already waxa ayagana meeshii ku jira oo soo galay siyaasiyan waa arrin kaleeto culeyskeeda leh NRA waa agency weyn oo waddankan maraykanka siyaasaddiisa dhinac kale u rogi karto marka howshan ma yaro mana ku ekaan doonto laba beri dad badanna way saameyn doontaa sida muuqato oo warbaahintu ay hadda warinayso dabadbaxyada isdaba joogga ee dhacaya kuwan hadda dadku ay taagtaagan yihiin waa aragnay kuwa nooc kale oo caalamka ka yaabsaday ayaa jira maxay yihiin kuwaas waxaad arkaysaa dabadbixi ugu cajiibsana ayaa dhacay waxaad stop ice gurguurasho wax walba
loogu sheegay si kasto ayaa dadka reer Minnesota ee ICE ugu sheegeen inay gobolka ka baxaan tan waxay ahayd arrintii aad iyo aad caaw iyo cajab gelisay oo markaan arkay aan dhulka xataa ku rafto istaagnaan waayo markaan arkay dadka gurguranaya ICE out marka waxaa kaleeto jirto xusid mudan in gobolkaas uu yahay gobol aad u qabow waxa igu soo dhacda qofka guurguurtay oo jilbihiisa iyo sacbadiisa dhulka dhigtay haddaaman dareemayaaba gacmihiiaba soo koge tani laakiin su-aalaan ku weydiiyey laga yaabo daawadayaashu inay isweydiinayaan dadkan muuqaalkooda markaa eegtay waxyaalo badan bay ka saman yihiin kulligood waa caddaan haddana kulligood waa shilisoo geedkaas leeyihiin timona waa buluug aruuriye dadkan waxaa moodaa in koofiyada loo wada geliyo isu eg dadkan si cajiiba ayay arrintan maaragtay maxaan ku dhahaa uga soo bixin dibadbaxan micnaha maadaama wiigag iyo wiigag dibadbaxyo ay socdeen maadaama dibadbaxii ugu weynaa oo iskooladii la xiray maxaan ku dhahdaa goobihii ganacsiga oo dadkii shaqooyinkii la joojiyey oo dadkii guryihii ay kasoo baxeen thousands of people ay waddooyinka qabsadeen uu Trump maqli waaye ICE-na ay maqli weysay waxay dhaheen bal haddana maxaan ku daynaa ya bal sidan dayno guurguurasho markii cunugii afarqaadka ahaa camal unbaa kugu soo dhacaya labada lugood iyo jilbaha ku socday aad iyo aad waxa weeye waxay sameeyeen waxaan la aragoo la maqlo ummadda caalamka soo jiidatay saare waa kuu mahad celinaya daawadeer barnaamijkan anigu waa idiin xirinaya laakiin xaqiiqatan waxaa lafdhabar oo isku dubaray soo diyaariyey saare laanteeda aad baad maasanta cabdixafiid adigaba qaybta ugu weyn ayaa ayadaa iska soo dubaray maasha allah daawadeer saasaa noo ballanay intaanu kaloo kale dib u kulmi doono fadlan